marka laga hadlayo sokorta waxaa jira dad aad u isticmaala sokorta balse aysan ku yeelin wax dhibaato caafimaad ah. badanaa waxaa sokorta aad u isticmaala dadka ku nool deegaanada miyiga ah, balse waa kuwa aad ugu badan yahay socodka oo waxa ay ku bixiyaan socodka, taasi oo sabab u noqota inaysan wax saameyn ah ku yeelan oo caafimaadkooda ku saabsan iyaga oo aad u isticmaala sokorta. hayeeshee khubarada dhanka caafimaadka ayaa daraasado badan oo ay sameeyeen ku ogaaday in qofka isticmaala sokorta ee haddana la fadhiista uu yahay mid wajahaya dhibaatooyin aad halis ugu ah noloshooda. khubaradu waxay intaa raaciyeen in qofka sokorta badan cuna haddana la fadhiista ay khatar uga imaan karto. dadku marka la leeyahay waxaan jooji, qofka ayaa la eegayaa. sax ma ahan in qof walba uu qaato jooji sokorta, waa inay isku ekaadaan miisaanka iyo dhererka qofka. socodka qofku haddii uu badan yahay ma jirto sabab loo yiraahdo jooji, ayuu yiri mid ka mida dhakhaatiir dhowaan soo bandhigay daraasad ay kaga waramayeen sokorta faa'iido iyo khasaaro hadba nuuca ay dadku u leedahay. khabiirkan ayaa dadka kula taliyey in ay markaa dhakhtar la tashtaan si ay isugu miisaamaan dhererkooda iyo miisaankooda iyo in ay u baahan yihiin yareynta sokorta iyo in kale. haddaba daawade, waxaad markasta xusuusnaataa oo aad maskaxda ku haysaa muhiimadda ay loo leedahay in markasta aan la tashano dhakhaatiirta si aynu ula soconno xaaladda hel caafimaad iyo hadba waxa inagu soo kordha. waad ku mahadsantahay daawade daawashada muuqaalkeena.